عدالة المرض قوت انتصر ما تصير أبسط حوالي محكمة ما يقول سرير كله حوالي كروب شحنة سعودة مرك عدالة ما تله هنا واحد ما قابل كرتين مرك تيجي سحب كيه أو 4.5 كم لك عدالة ما عدالة دورت ولا ما وسؤال شلوات وأيضا أكيد ما تشتغل سوتشيدي هتين عدالة جديد وحصانة ما أنا واحد أمزح حتى دولدي هو عدالة الرأي يا دي عدالة الدكتور اسمي نور بحفظ السؤال يعني وحوم حمارين أصلا يعني من الحقيقة وكان الدنيا محكمة السرية نمكي قضاءها والله ضي مو تسالي ما قلت وكذا عدالة هذا الجفتاء بكسر ذلكي مركز قدومية محكمة السراحة واستفاعي ويرمار تسكي دباسة يسطو مركز قضاء المشاهر ما يستان ما يستان يعني تاس مو بنانيس إن مخوها عدالة الرسل مو بنانيس خلاص تقاليس مركز أريمها سنوا كل من كوي ولبنا إن شاء الله محمد نعم سلامتي جنرال حلوة هي دمانتي لما السؤالات بقى مد هو حوي ويعني سوتشيغن إنه هو سؤال سوتشيغن وحوي كنت يدور يا هوي مركا عيدن كان مركا ciidamada marka la dhisayo anigu waxaan qabaa waa soo jeedinta midda in ciidankii la dhiso ciidankii u diyaarsan in loo raadiyo wixii uu ku hawlgeli lahaa waxaan aragnaa ciidankii oon diyaar ahayn in cunaqabataynta uu kala qaado kuna waxa weeyaan intaan buu iman karaa waxaa adkaanaysa kaydintiisa iyo hayntiisa iyo sugidda ammaankiisa iyadoon ciidanka weli diyaarin ciidanka waxaan ognahay 6 bilood ilaa 8 bilood inta ka badan ku diyaar garoobi karo qofka askariga marka anigu waxaan aaminsanahay in ciidamadii qaranka meel oo heebsaygan oo ammaan lagu xareeyo kadibna hubkaas la soo geliyo waddanka si ay ugu hawlgalaan waa mid talabaad waxa weeye waa qabashada degmooyinka iyo gobollada ka soo qaad marka la qabto gobolkii wuxuu u baahanayaa laamihiisii degmooyinka shaqaale gudoomiye ku-xigeenkii booliiskii nabadgelyadii hay-adihii dawliga ahaay oo dhan inay shaqeeyaan face bay u baahanayaan shaar bay u baahanayaan marka dawladdii oon haysanin lacag ku filan dhaqaalo ku filan in dalkii la qabto xoogaa waxaad moodaa inay adag tahay marka taama kasii hadasheen oo ma sii diyaariseen gobol walba iyo degmo walba in wixiisii marka la qabto loo dhammaystiro asalaamu calaykum okay waa su'aal fiican horta waxaa weeye ciidan suu u howlgalo waxaa laga maarmaan waxaa weeye in wixiisoo dhan u dhan yihiin annaga hadda buugana qornaan idin sheegahayay maaragta kamaanaan bilaabin hub baa la rabaa iyo kanaa la rabaa iyo waxaa ka bilownay mushaharka askariga ka bilownay mushaharka askariga number 1 يعني أسكري إنه هلو بوها نور وكل نور إنه هلو مركو هلو مشاركس ينور وكل نور عروتيسي قوة الكلام مركا أسكري مهول كيري كرا وشغال كرا مركا تدرد عن كمان صدي وحاول إن وصلنا مشاهد رسمي نور في عن وصل أسكري جو طلبات إن حديه ميليتري لا ضيع الترو واحد يسوق بهنا لا بيسوق واحد ضيع الترو بهنا لا ضيع الترو سي عسكري وهيجن وهذا وكمت مال روحي وليه مركبة ولا صوت قاعد كان عندي أوبريشن هذا واحد يستعمل بقولي سؤالي قولي حمر وين أو حمر وسكوين عسكري صحيح من اللي هنا يبدي مركب مشاكي الله يرى دجاجي إلا هلا حرق وحرق وقري يسوي دكتور مش قري كلا هذا إنه هلا مال وقري جماعة يقول وكرر وحصل نبأ لقوا ما تكلوا أو ده هاي النور بيسترو أوكي تصور جدوي
laakiin saa idin sheegay weli dhaqaalihii baa jirin meeshii gobolladii baa iyaga laftoodii baa yaa khilaafaadkooda iska baday gobolladii baa si fiican loo xoreyninba hadda gobollada laleeyahay waa la xareeyay 10 kilomitr ku yimaado diniga ahay dawladda kasoo horjeeda marka nabadgelyadii iyo dhaqaale xumo markii salaam waxay waa mashaakil nabadgelyo xumo iyo dhaqaale xumo markii salaam waa problem laakiin kulli waa fikrad fiican oo soo jeedisa hadda ma soo tan la xiriirda musuqa ما الدستور كان ودستور كي هورنا ومحصية أحيانا بدل لقى بدل الواجب مركا ودستور وحاوي كل لكن هذا الدستور كل جبت ضد ولا يديه بالدستور لكن كي حد ما نضم بكبر الموجود هو شو هذا سيدي وي سيدي بيصعدها كم يدوي tan la xiriirda afarta kibadhiya badhka kolka hore xoogaa culays way ku haysay laakiin haddii ba laga hadlay waa okay laakiin tan la xiriirda musuq maasuqa iyo in xisaabta loo baahan yahay culays intee la-eg bay idinku haysaa ma wax xun afka baarkiisa mise waa wax si fiican idinkaga raarad inaad wax badan iyo xoog gelisaan ilaan musuqa waa waxa ugu horreeya wax dumiya marka taabal xoogaa yar maya horta waa musuqmaasuq cid ogolaanaysa ma jirto laakiin waqti hadda la joogo niyadda waa laga rabaa in la baabi'iyo laakiin sidii wax looga qaban lahaa implementationkii ayaad moodaa xogo inay iska adag tahay oo meeshii awooddaas baa sambara yaa meeshii jirta oo awood dhaqaalaa jirto dhaqaalihii bay sal oo waxaas oo dhan laakiin waa idinka go-an tahay musuqmaasuqa lama rabo in laga hortago waa loo baahan yahay madaxweyne waa dhowr goor ka hadlay uu leeyahay waa zero tolerance laakiin de controlkii baa adag si lagu controli lahaa yaa adag maaragta howlgooda baa ودن جعلنا أنا ودن أنا وجعلنا ودن الرب وحقيقة مجنون أنا وحق جعلنا معنا ودن دون بسونا بس قلنا نقونا دون كونا هابونا تو معنا ضد من أنا وأنا ما أدري حتى ما كواسونا لا أدري خير على الشيء معنا بينكي صوت بسبيكس أي بينكي واحد برنا أو الشيء معنا ما له الشيء معنا ولا دور من بينا حسن محمود بينكي تو ويا ودوها تعبك تو كل شيء معنا هاد وحاول تمسير معنا كان هو جزء من الدنمارك ميراث لعب يدرا ما تصدق يدرا ما كبرنا أنا بقولي أنا بدري صدق فاهم إيش أقول أجوان ضد استاد كجبنا درا أو ضد خبيث أو الناس كحوار معنا ضد تاكل يعمل فوقي بشن دور أو تم دور أولين إن أنا كان أول حريد أو وسانكرين أصلا نيجودي أصلا ما يعرف شو جديد أنا ما أعرف ما أعرف هنا أنا حبرنا بسبان هذا وحنا بقنا معنا مدارات سمينا الحمر ترن بناك يسبحان قري بناك سبب سنة مر طلع نوريش ما دار كان واحد بالسوق ما نوحي له مروج شغال ما أنا بس بالكلام ملك دعوة أمر ما دام برلمان كجل استوى حقنا وإحنا هيك وكي وعلى عاصمة الصومال وحكمتها مقالة مقدسو حمرين ويسب كي الصومال لهم ماشي وقبلنا ستاس عالم بس حتى هرتز اللي سو ماشي نقابرهم كلها سجال بقول سنة يستعمل تعرف هو أنا أكيد إنه كده لكن وحالتك استوى هذا شيء هذا هو كده سامع كلام أنا نوري يشوف ما ده كان كوسو بعد الحمد لله مدارك سمعنا ترى أنا تيجي هذا ما تقول بس تيجي أفكرنا وحاول بين ولا تزرع بين والله لعقته وحيوصل عليك ذك أو بمشترك كان مش لعك بغير جديد بقول له باستي العنز ده لابلو بريزنا العنز ده صار العنز ده يمسكه ولا ما تودوه ويدوه يا والله باستي ما أنت صورت لبس وأنا عليه والله أنت صوم قناوي وأنت صوم قناوي وأنا جبتها أو ضد بوليسي الدقيقة
iyo dad iyo nidaamkii magaalada oo iska qaabdaran wadada marshabiyeediga dad baa dhisanaya waxaa jirta daar dheer oo laga dhisaayo marshabiyeediga waxba uma jirto meel xataa baabuur lama dhigi karo meesha marka qaladaadkaas oo dhan baa socda dowladda marka niyadda waa laga rabaa in wax laga qabto laakiin weli maaragta weli lama gaarin weli ما سؤال غير مركز أرنا كنت تروى كل جديد ما دام أنها كمية الصومالية ما لها بدنا عندنا هاي أود الدور الشغل معلنا مركز وحنا قلت لنا الدولة إنه كل شيء سفارة دي بيلو مريكان جوودنا كان بدي سا نبلا ود السرعة سيد دايس برا كان نجوا كلا ودنا كان دكان أن إنفلونس ويا كانوا ما دخل الدولة ودنا كان سي ودنا كانوا في الوقت صعبت الدولة بدنا أي سيد فوق دتكود أنت جوجا أي ودنا كاس كسر جيدا ayaa ku taageera iyagoo isticmaalaya awoodda doorashada ama senatarkii ku qasbaan in xidalihii wadankii Soomaaliya ku sameeyo marka taana in la dhisaa loo baahan yahay sababta ismaha inuu Soomaaliya kaliya ka socdo maaha waa inuu intana ka socdaa taas waa talo laakiin si lagu dejin karo ugu awood badan waxaa weeye in safaaradii dib loo soo celiyo connectionkiina la sameeyo oo lobbies oo Soomaali dhanna ka shaqeeyaan dib loo dhiso taasna waa ku wata taas kulli waa tan Mareykanka iyo dowlado badan Soomaalida iyo maaragta atraafeen oo safaarada geystay marada ayagu safaarada geysteen dhinaca kalena waa in annaguna aan safaarada geysan marka taas waa lagu tala jiraa laakiin ciddii la geyn lahaa yaa laga tashanaya waan u malaynaya laakiin waa imaanaysaa taas جنرال شركة وقت هذا أنا سؤال يا رب قابل su-aashu waxaa weeye daacadda airport waa laga guuraya mid kala dhisaya taas waa faado qaadon oo yani airportkan magaalada dhexdeedii wey diyaaradii markay soo degahayaan magaaladay kasoo degayaan in magaalada ka durugsan mar waxaa kasoo soo qaada dhinaca balcad xaggeed in laga dhigo iyo in laga dhigo dhinacan kale oo maaragtay afgooy iyo inta udhexaysa meelahaas udhexaysa ilaa 40 kilomitr meel u jirto magaalada laakiin weli lama go-aan u dambeeyey lama gaarin laakiin warku waa jira laba su'aal aan dhiman su'aal ninkan aan shaqo sheegay ninkan walaalkeena hadal uu soo jeedinay marka waxay inay habeenka duulada waa kala baxad waa biradana la leeyahay marka intaas aan sheegay arrintii aad u gaaban tahay xawal doorashadan oo ka dhacday Kenya intee in la eg bay ka yeelan kartaa Soomaaliya ku saameyn kartaa xagga nabadgelyada ma doorashadan horta hadda warkan soo gaaray ninkii Kenyatta hiray baa leeyahay Soomaalida joogta Kenya markaad hadalkooda aad maqashay labada nin waxay leeyihiin Kenyatta u fiican oo Soomaalida xaggeeda Kenyatta u rumbiyaadaan laakiin lama garan karo asiga hadda waa dacwa weli socoto kii kale waa diidan yahay laakiin Soomaalidu waxay leeyihiin koob badan oo maaragtay Nairobi hadda markaa soo maraya bisha bil ka hor waxay leeyihiin Kenyatta inuu soo baxo ayaanu jecelnahay marka dee waxay noqon doonto laga yaqaan dalka maaha nin keliya ma noqonayo dalka Kenyatta hadduu fiican yahay dalkii kale oo waxay kaloo dhan baa jira marka arrimahan muxuu ahaa halkaas waxaa sii dabagelaya ciidamada jooga Kismaayo iyo Jubbada yani waxay ka qaban doontaa Kenya dowladda Kenya ciidamada ma la noqonaysaa hadduu madaxweyne cusub yimaado mise lama noqonayso anu waxaa qaba inayna la noqonayn maxaa jira nabadgelyada ilaa la sugo oo ma aha Soomaaliya keliya u danaynayaan ayaga isu danaynaya laftooda oo xuduudooda iyo rabaan inay ammaan ka dhigtaan oo al-shabaab iyo doonaha inay usoo dhawaaneen ay doonayaan marka waa wax soo bax doono kulley waa arki doonaa weli انت ولكن رب الفريق من فرع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيدين سلامي أبيكم تسوتي. أبيكم تسوتي وعيدين سلامي. والسلام عليكم. وشو دويني مدحنا كمانتا شو دويني حفيز كان أوبورنا. وحا لنا هاي وطنا سنتا. كذا المد وحان جينا هنا قدرة سلام ديرن. madaxdaani Soomaali madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaali iyo baarlamaanka iyo ciidanka iyo diyaasha iyo dowladda Soomaali meesha ku nool ayaan salaamaya intaas ayay maasantiin kasoo jamaal naga soo galay uuna ku mahadsan yahay inuuna sugay maanta arrin gooni aan soo gasho kusoo daahnay naga raali noqdo dadweynaha community Portland waan ku mahadsanaa waqtiga wasiidin insha Allah ana waxaan rajaynayaa intaan ka fiican mawduuca iyo dowladda iyo wixii Soomaali ku gaaray 5 bilood insha Allah ka badan gaari doono insha Allah Soomaaliya Soomaaliya Soomaaliya